dhalinyaro tusmada maanta aan lagu tabaalin tacadiga tahriibtiyo ku jira toobiyaha waalan tayada ilaahayaan ka dhigay tacab khasaara waxa fiican qofka inuu muujiyo tayada uu leeyahay oo uu bulshadiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed kaga dhex muuqdo waa nasiib daro dadkeenu khaasatan dadka gobolada u dhashay waxaan filayaa inaysan fahamsanayn qaab shaqeedka qofku maartay inuu wax walba oo field inaysan shaqadu maartay aysan ahayn wax maartay qofka sumcadiisa iyo jiritaankiisa wax u dhimayaan aysan ahayn ma sha Allah si fiican baa u qanacsana sababtoo aad dabcan waxaan bartaa waana shaqaystaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkuna sideedahanba waxa fiican inuu qofku yahay qof gacantiisa maali kara oo ku shaqaysan kara khaasatan aniga haddaan isu eego waxay i gaarsiisay wax la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo human power inuu jiro ama qofku inuu awood yeelan karo in ay faa'iido u leedahay maxaan ku iraahdaa isqaabay dhulkooda uga shaqaystaan in shaqooyinka laga faano aan laga tigin aan laga faanin ay si wanaagsan uga shaqaystaan kaasoo ka turjumaya inaanu qanacsanaanta iyo go'aanka aanu ku qabno inaanu ganacsiga kan meel gaarsiino kaasoo ka turjumayo dhalinyarada iyo dhammaan dadka nala age-ka ah inay ku cimri qaataan inay arkaan inay iyaguna wax bilaabaan ama ay wax meel gaarsiiyaan goortii arkaan dabcan inuu halka ka shaqeynaya runtii in badan way dhahaan Cabdinaasir oo qaabkan baad ka shaqaysataa bal ka waran sidee u aragtaa marka alxamdulillah ma dhahan inay shaqaysta wada ka shaqaataa leeg ka ordinana maxaan ku iraahdaa shaqo iyo meel kale ha uga halkeenina si fiican wadkiina uga shaqaysta ma iraahdaa runtii noqda entrepreneurs qof wax bilaaba ama wax curiya isagu waxaana uusan macnaha hangaabnimo iyo aysan ka noqonayn uu meel higsanayo macnaha tan lagu furay waqtigii aan furay ilaa ma hadda waxaan rabnaa inaan wadno oo aan meel gaarsiino shaqooyinkan iyo kuwa kale oo aan jeclahay inaan dhalinta Soomaaliyeed wax barata iyo kuwa waxbarashooyin ka baxayba in ay dhiiri gashadaan wadankooda ka shaqaystaan in ay iyagu shaqo abuur yimaadaan in ay fikrad shaqo kansadaan oo ay kaga faa'iidi karaan nolol maalmeedkooda ay ku nooleen karaan taasoo macnaha noqotay saldhig u noqotay inaan caqabado badan ama dana badan oo ku saabsan habnololeedkayga iyo habnololeedkayga inaanu ku maarayno taasoo tusinaysa oo u noqonaysa gulub dhammaan dhalinyarada age-kayga ah ama kuwa wadankaba noocyadooda ma ahaadeen inay shaqooyin abuuran karaan in ay iskooda u shaqaysan karaan intii qof shaqayn lahaayeen alxamdulillah rabbil caalamiin meeshan waa shaqaysaa si wanaagsan baan ilaa iyo waqtigaas ugu soo jirnay marxalado badan baan la soo marnay runtii laakiin maalinka maanta heer fiican bay joogtaa ma sha Allah inta haddaan ka soo gudbo meeshan waqtiga haddaan bilownay waxaan kaloo dhinac wacday ama ku dhinac socday dhammaan heerarkayga waxbarasho haddaan aniga ahay haddaan ragga kaloo aad fiidiyooda ku aragteen ama muuqaalada ka muuqda aragteen ay yihiin ama sawirradooda aad haysaan waxaanu ku garab wadnay oo aanu dhiganayn dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashadayadii hadda anu waxaan dhigtaa BSU waxaan ahay ardaydii 2014 ka qalin jabisay school secondary control Gambol secondary school waxaan 2015 bilaabay jaamacadda BSU faculty BBA ama business administration waxaan hadda mariyaa sanadkii saddexaad baan ku jiraa waxaan ku rajaynayaa inaan si fiican uga qalin jabiyo hadii Ilaahay idanka iga dhigo insha Allah maadaama kulliyadaas tahay kulliyad ganacsiga waxaan jeclahay insha Allah inaan noqdo nin weyn oo ganacsada oo barnaamijyo badan iyo shirkado badan soo kordhiya mustaqbalka waxbarashadeedii heerarkeedii ma soo maray 2016 bishii 9aad ayay ahayd markaan ka qalin jabiyay jaamacadda Bariga Afrika Public Administration maadaliyaha iyadoo aan hadda ku sii dhiiranahay in aan tan wado oo heer gaarsiyo oo aan ku qanciyo tusiyo dhalinyarada iyo dhammaan waxa age-ka inay meel gaari karaan ama ay field wax qabsan karaan heerkii waxbarashadana aan ka samrin ee aan wado isagana rabo inaan deedan meel gaarsiyo haddii qofku uu isdhaho shaqo ilow hel sal la socotay Soomaaliya 75% waa dhalinyaro waan bilaa shaqo ma haystaan unemployment way 75% dhalinyarada Soomaaliya marka tani waxay kabtaa ama wax u noqotaa dad badan oo magacyadooda iyo waxa aan halka hadda ku soo koobi karin ay wax u noqotaa oo dhaqaalana waa ka soo xiroodaan oo mid maaragtay anfac leh oo waxna tara oo khaasatan anagu aanu kaga soo gudubnay heerarka iyaga waxbarasho anagoo tan time siinana waxbarashadana time siinana iyada ayaa
na kaafin jiray ama nagu caawisay inaanu heer ka gaarno. haddii dhalintu aaminsanaan lahayd dhulkooda maxaan ku rahdaa muhiimadda uu leeyahay oo ay shaqooyin badan iyagu isku train gareyn lahaayeen inay ka shaqaystaan faa'iidooyin badan baa imaan lahaa. bishii koowaad waxaan filayaa 2017 bishii 12aad I think 15 ahayd baan waxaan furnay field labaad oo filayo inaa isagana aragteen ama tagteen ama booqateen. dadku maaha inay shaqooyinka qaybtooda maxaan ku rahdaa dhahaan tan inaan shaati ka gashano aan ka sii jeedno maahane maxaan ku rahdaa muhiimad siin mayno laakiin waa inay isku dayaan waxaan inay ka shaqaystaan qaab nololeedkooda si ay ugu kafeyn karaan. taas ayaan dhalinta kula talinaya aad baan ula talinaya waxaan leeyahay nimayo waddankeena ka shaqaysta si fiicanna uga faa'iida. waxay doontaba ha ahaatee shaqadu macnaha ma aha wax adiga wax ku dhimaya laakiin waa wax adiga wax ku taraya waa wax aqbad ka faa'iideyso waa wax aad abuurayso oo aad bilaabayso ama aad danahaagii nololeed aad ku maareyn garayso inta aad qof tuugi lahayd.